بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، sidaan la socono jimcuhu fadli gooniya ayuu leeyahay. jimcaha aad baa loo ammaanay, axaadiidna way tilmaantaa saasoo kale qofka ku dhintaa khayr iyo wanaag inay ka mid tahay calaamaadka lagu yaqaano xusnul khaatimada inay ka mid tahay. qofka mar allaala marka khayr iyo wanaag uu ku gaarayana waa mar qofkii horeba khayraysnaa, kadibna dunuub iyo macaasiyo laga yaaba inuu sameeyey inuu ilaahay uga badbaadiyey subxaana wa tacaala. marka maalinta xusnul khaatimada waa lagu tilmaamaa, waana lagu tiriyaa. waa suuragal qofka inuu dhinto dhowr maalmoodna uu yaalo, waa suuragal in habeen jimco uu dhinto isniinna marka la duugo ama talaado ama arbaca, laakiin mar walba waxaa loo fiiriyaa xilliga uu ku dhintay. xilliga uu ku dhintay ayaa markaa loo fiiriyaa, waayo qofku mar allaala markuu dhinto yayba u bilaabataaba qiyaamihiisa. marka insha allahu tacaala qofka noocaasa mar dambaba ha la duugee khayr baa loo rajaynayaa insha allahu tacaala. nacam.